bismillaahi raxmaani raxiim kulan habboon daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena qubanaha xaqiiqda wararka caalamka iyo Soomaaliya runtii barnaamijkeena qaybtan waxaan ku eegi doonaa doorka Shiinaha garab istaaga adag ee uu muujiyay Iiraan maxay ahayd raadeelka xoogan ee hawada sare ee Shiinuhu waqtigan u diray Iiraanse maxay ka tiri talaabadan adag ee Shiinuhu u qaaday si uu u garab istaago waxa sidoo kale isna soo hadlay xogaya arrimaha dibadda Mareykanka oo yiri waxaan markaas la macaamilaynaa wadaado oo waliba shaaci ah maxaa ka keenay karkarka waqtigan Mareykanka hadii uu arkay isbahaysiga culus Shiinuhu Iiraan iyo waliba dalal kale oo Carbeed oo waqtigan u muuqata in si xoogan garab istaag ay u muujinayaan dhinaca kale waxaan isla fiirin doonaa Xuutiyiinta Yemen ayaa gantaalo u raraya badda cas iyadoo Trump si taxadir la'aan ah isna markaasi ugu diraya markab labaad oo diyaaradeed walibana dagaal xoogan ka geysan kara warbixino ayaana tilmaamaya in ciidamada Xuutiyiintu ay dib u dhigeen hantidii gantaalada ee markaasi u socday badda cas iyadoo aan ognahay in marinka badda cas uu yahay meel ganacsi oo waliba hadii waqtigan dagaal uu qarxo saameyn xoogan ay ku yeelan karto dhinaca kale waxaan iyana warbixintan ku eegi doonaa Israel oo ansixinaysa qorshe markaasi lagu diiwaan gelinayo dhulalka daanta galbeed hanti dawladeed haddaba maxay tahay sababta keentay waqtigan iyadoo Israel duqeymada joogtada ay ku hayso shacabka Falastiiniin in markan daantaasi galbeed ay u diiwaan geliso hanti dawladeed se shacabka Falastiiniyiinta iyo mas'uuliyiintu miyay aqbali doonaan qubanaheena ayaan ku qaadal dhigi doonaa waxaan sidoo kale iyana aan eegi doonaa taliyaha guud ee ciidanka Iiraan Abdikariin nin la yiraahdo ayaa hadal uu jeeday waxa uu yiri hadii Trump uu damacsan yahay dagaal diyaar ayaan u nahay oo waliba waan iska difaaci karnaa wax kasta oo uu la yimaado maxay tahay waqtigan talaabooyinka culus ee ay qaadayaan labada dhinacba sidoo kale doorka ugu muhiimsan Shiinuhu ka geysanayo ma noqon doona mid markaasi gabiyaanba Mareykanka halkaas uu ka saari doonto iyadoo aan aragno in daandansiga Mareykanku uu noqday mid joogto ah walibana aan dabago lahayn dalalka dunida oo dhan ayuuna markaasi cagaha kula jira Mareykanka markan dab ayuu isku xulcinaya qubanaheena ayaan ku qaadal dhigi doonaa qodobadaasi iyo waliba wixii kale ka soo kordha caalamka iyo Soomaaliya marka ugu horeysa waxaan ka dalbanayaa saaxiib walaal dhammaantiinba qof allaala qofkii soo gaara muuqaalkan like-ta saaxiibo fara badan ayay ina tusaysaa inaga hakran kuna soo bir channelkeena qayb si aad ugu noqoto wararka caalamka iyo Soomaaliya maalin walba halkan aan ku baahina waad ku mahadsantahay aan ku bilaabay warbaahinta Shiinaha ee China Plus ayaana ku warantay in Shiinuhu markaasi uu ku wareejinayo Iiraan raadeelka noociisu uu yahay YLC-8B oo markaasi loogu naanayso ama loo yaqaano ugaarsadaha diyaaradaha isqaariya raadeelkan waxa markaasi soo saarta shirkadda Shiinaha ee loo yaqaano City waxaana markaasi loogu talagalay in markaasi looga hortago diyaaradaha dagaalka ee ay markaasi isqariya sida F-35 iyo waliba F-12 warbaahintu waxa ay sheegtay in YLC-8B markaasi uu awood u leeyahay inuu ogaado diyaaradaha nooca ee masaafada dheereeya ilaa waliba 350 kilomitir taasi oo ay ka dhigan tahay in ay markaasi Iiraan ay heshay awood sare oo ay kula socoto ka hortaga diyaaradaha casriga ah ee markaasi ka howlgala xilli xiisad markaasi ay sare martay una dhaxayda Iiraan iyo Mareykanka Shiinuhu wuxuu doorbidayaa markan in garab xoogan uu u muujiyo dhigisa Iiraan iyadoona u muuqata waqtigan in Mareykanku si weyn uga caroodo caawinta Shiinaha ee Mareykanka waa talaabadii ugu adkeyd ee awida Shiinuhu u qaado in si weyn uu markaasi u caawiyo waqtigan iyadoo xiisada dagaalka u muuqato inay tahay mid si xoogaysanayso walow la qorsheynayo in dhawaan maraakiib kale Shiinuhu uu leeyahay isna uu wareejin doono oo Iiraan ku wareejin doono si markaasi qayb ay ugu noqoto dagaalada halkaasi ka socda garabka xoogan ee Iiraan waqtigan ay ka heli karto Shiinuhu waxa ay u muuqataa inay tahay talaabo aad u xoogan waliba saameynteeda leh haddaba Mareykanku xiriirkiisa miyuu u jari doonaa Shiinaha qowaniyaashan kaliyaan ku eegi doona dhinaca kale hadii aan fiirino xogaya arrimaha dibadda maanta hadalkiisa qoos ayuu ahaa oo waliba waxa u muuqday in markan awoodda Shiinaha markay arkeen inay dib ugu laaban doonaan doorka iyo waliba dagaalka Iiraan ee ay cilaamisay
waqtigan iyadoona Shiinaha si weyn taageero adag ugu muujiyay. Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Marco Rubio ayaa yiri waxaan la macaamilaynaa wadaado Shiica ah oo aad markaasi xaq jir u habari kuwaasi oo go'aanadooda juqraafi siyaasadeedna ku saleysan ayuu yiri si buuxda aragti diimeed qofna weligiisa biri heshiis guul lama gaarin Iran balse anaga waan isku dayi doonaa ayuu yiri si kastaba ha ahaatee waxaan door muhiim ah qaadan doonaa ayuu in heshiis guul aan ka qaadan doono Iran maadaama waqtigan xiisada labada dhinac wuxuu yiri ay aad u kacsan tahay Iran hadii taageero kasta ay heshana waxaan markana garab xoog leh aan ku siin doonaa ayuu yiri si kasta oo aan u damin karno xiisadaas laakiin ma yara oo qorshaha aan qaadayno ayeenan la dhayalsan ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay markana hadii aan eegno taliyaha guud ee ciidanka Iran Abdikarim Musawi ayaana hadal uu isna markaasi jeediyay waxa uu yiri hadii Trump uu damacsan yahay dagaal in uu nala galo maxaa markaasi ku kalifaya ayuu yiri in uu wada hadalo dalbado ama markaasi waqtigan uu qaban qaabinayo inaga si kastaba ha ahaatee waxaan diyaar u nahay wiji kasta uu la yimaado Trump si kasta uu soo bandhigana waxaan natiijadeeda u tusin doonaa ayuu yiri qorshaha inaga yaala dagaal lala galo Iran wuxuu Trump markaas u noqon doona ayuu yiri cashir natiijadiisu waxayna markaas u noqon doontaa mid ku adag ilaa waliba Mareykanka ku qasbay buu yiri in uu ka joogsado kicinta dhibaatooyinka dunida oo u muuqata waqtigan in colaadeedu ay saameyn ballaaran ay ku yeelan karto taliyaha ayaana si adag ugu digay talaabada Mareykanka iyo waliba sidoo kale isagoona daaqada ka saaray wada hadallada Mareykanka uu dalbanayo markana hadii aan fiirino Xuutiyiinta Yemen ayaa gantaalo u raraya badda cas iyadoo Trump si taxadir la'aan markaas isna u diray markabkii labaad ee diyaaradeed dagaalka waxaana warbixintu ay tilmaamaysaa ciidamada Xuutiyiinta inay markaasi dib ay u dhigeen hantidii gantaalada u socotay badda cas iyadoona warbaahinta Iran ay markaasi ka digayso in kooxdu ay markaasi isku diyaarinayso lama filaan weyn ay ku noqon karto hadii dagaal uu qarxo waxaana sidoo kale la tilmaamaya badda cas waa marin ganacsi oo caalami oo muhiim u ah hadii iska hortag kasta ka imaan karana si toos ah ama ay maraakiibta Mareykanka waxyeelo xoogan ay ka soo gaari doonto awaaqib xumadeedana leh gobolkana saameyn ay ku yeelan karto marinka badda cas waa goob ganacsi oo walibana si weyn ee markaasi loogu ganacsado walow ay u muuqato markan in saameynta dagaalku ay colaadiisu ay dib u kicin karto hadaba Xuutiyiinta Yemen waxay ku goondinayaan iyagana in weerar gantaale ay ugu hortagi doonaan hadii Trump iyo waliba sidoo kale Iran waqtigan ay xiisadoodu ay dami weyso waa hagaag hadii la dhamaadkaadii la soo gaartay fadlan waxaan ka dalbanayaa mar kale inaad nagu soo biirtaan oo aad ka mid noqotaan saaxiibadana joogtada wararkeena iyo waliba barnaamijyadeena halkan ugu la socdo maasanidin